السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalaheyga maanta waxaan rabaa inaan idinla sheer gareeyo in ladugan waxaa karsadaan badanaa Asiaanka Asia ka imaaday anaka waxaan karsanaa looskan ka sameysanaa laakiin digirtan waxaa isticmaalaan wadamadaas kale laga isticmaalaa sidii Pakistanka oo kale India Afghanistanka qoladaas dhinacaas laga isticmaalaa marka wixii maadaama aan kasaayo idinkana aan idinla sheer gareynaya wax easy ah waaye wax saas oo dhib badan ma ahan meeshan waxaan ku shubtay half cup oo subag ah waaye half cup subag kalena meel uu yaala 1 cup waaye waa qaybsaday nusna hadaan ku shubana nusna hadhow aan isticmaalaa meeshan waxaan ku shubanayaa hal qaando hal bakeeri iyo bar oo waxaan ku shubanayaa oo digirta shiidna aan ku shubanayaa meeshan marka dabka waxaa loo baahan yahay inaad ka dhigtid medium na ma ahan low na ma ahan adiga medium iyo low ha u dhaxeeyo laakiin high inuu ka soo degto waay waxaana loo baahan yahay maanta dhan inaad gadgadisid nus koobkii hadaa meesha aan idin dhahay meel uu yaala kaasa marka waxaan ka isticmaalaa 2 qaando aan ku shubaa aan ku gadgadina 20 daqiiqo loo baahan yahay inaad gelisid asaan aan gadgadisid aaba ka dhaqaaqin meesha marka wax kalena ma ahan bis waxa loo baahan yahay inuu ka baxo urka oo carafti oo digirta inuu ka baxo loo baahan yahay taas waa dabka si zaid loogu haya marka waxa kala jiro hal qaando biyo jiro oo lagu shubanayo meeshan asaan ugu dambeeyo marka aniga subaga isticmaalayo kii koowaad waa soo dhalaaliyay kii labaad ma ii dhalaalsano hoos waxa fadhiyo caanahaas aan biyo ahaan u isticmaalaya marka mar walba aan ku shubanayo subaga qaandadan waa ii raacsan yahay marka waa isku isticmaalaya laakiin adi hadaa subag nooc kale isticmaalaysid oo kale aan caano lahayn waxa isticmaalaysaa biyo caadi isticmaalaysaa hal qaando biyo soo dareysa asaa ugu dambeenayo marka ku shubtid gadgadisid hal daqiiqo oo kale isla markaas waa ka gadinaysaa saxankii oo ku diyaarsana ku shubanaysaa marka ani hadda keegi diyaar waaye bis waaye gadgadiskii ugu dambeeyo maraya markastan waxaa loo baahan yahay saa idin sheegay inaad gadgadisaan waaye gacanta ha ka joojinina maanta dhan waxaa loo baahan yahay dabkaas inuu u saarnaado oo aan maanta dhan walwalaaqdid maasha Allah waqtiga waa ii dhamaaday hadda saxan aan ku shubtay marka hadda waxaan kala rabaa inaan idin sheer gareeyo mise idin sheego inaad ka sameysan kartaan waxyaalo badan oo ku shuban kartaan sida looska oo kale ku shuban kartaan zabiib wax kasta ku shuban kartaan laakiin ani loos bis aan ku shubanaya meesha waxa igu jiro waa heel waa ujeedin size ka heelka ku shubtayna marka waxa kala hadan aan ku shubanaya sokorti shiidna iyaalay marka sokorti shiidan nusa hadda ku shubana wax yar waa dhigana meelan dhigana waxaan u baahanahay inaan tartiib aan u gadgadiyo laakiin hadaan dhaho yani sokorta bakeeri inaan ku shubana iyo waa qasa waxa laga yaabaa sokorta inay meesha dhan iga daadaadato marka ma rabi tartiib la u qasana markaan dhameeyo aan sameeyo markaas hadda waxaan sameeyna nuski kale yaalay aan isticmaalaa marka laakiin waxaan rabaa horta inaan bilaabo saan tartiib aan ugu qasi lahaa soo iga daadaadin marka mar walba waxa waayo shay fiican hadaa arko wallahi waxaan jeclahay mar walba inaan idin la sheer gareeyo walaalaheyga Soomaaliya nahay cuntadeeni cunto qaas ah cunaa macmacaankeeni markisto hal nooc waaye marka waa fiican yahay macmacaaniyaasha kale inaan barano oo ajaanibta waa fiican yahay inaan barano haduu yani uu eg yahay sida raashinkeena dhadhankeena oo kale it's good inaan barano anakan yani aan karsano hadda kan oo kale adoo caano booro karsatay oo kale waaye mise adoo chocolate karsatay oo kale waaye waa macaan badan yahay marka Soomaali hadaan ma isticmaalna anaka waxaan isticmaalnaa hunguriyaasha kale macmacaanka kale marka waa fiican yahay inaan barano anakani aan ka faa'iidno dadka kale waxay karinayaan inkastoo ay yihiin muslimiin badankooda Pakistanka oo kale Afghanistanka oo kale marka la dugaan noocyo badan loo kariyaa halkaan nooc kale ma waa badan yahay bis laakiin midkaana waxa u dhadhan eg raashinkeena oo kale so that's why idinka idin la sheer gareynaya ahaan marka waaka wixii waa isku soo wada qaqasay marka qiyaaska kuuska adiga ina qiyaasatid waaye marka asaa u warwareejisid
hadhow waxaa la rabaa gacantaada inaa kaligiis aa ku wareejisid yacni adigoo labada gacmo aa isticmaaleynin waxaana sababay waa wuxuu kaligiisa isoo aruurina waa ujeediin soo noqonayo laakiin markaa warwareejinaysid kuuskuus wax yeeshta camal uu noqonaa marka saanaa ka fiican markaa sameynaysid waa ujeediin soo noqonayo kordhan liishu ka noqonaa quruxu noqonaa maasha allah marka choice waxaa leedahay inaad saaratid saxan dheer ama saxan weyn ama xaanshooyinka aaga gashatid yacni sidii adiga aad rabtid yacni aa decoration gareyn kartaa marka mar walba decorationkaaga hadduu fiicnaado sheegaaga wuu qurux badnaana marka ma ahan hunguriga inuu macaanaado le ma loo baahno waxaa fiican xataa in la qurxiyona waa fiican yahay marka looskan waa saaran kartaa zabiibaa saaran kartaa noocyaal kalaa saaran kartaa choiceka adiga iska laakiin aniga waxaan saaranayaa looskan maadaama ay yacni ilmaheyga ay jecel yihiin looskana isticmaalaa marka easy waa ujeediin waana macaan badan yahay waxaan u maleynaa gabdho badanaa Soomaali YouTube ku jirin inay ayagana weli ay sameynina u maleynaa marka ana maadaama aan kasaayo ani waa idinla share gareynaya maadaama uu nagu cusub yahay Soomaali hadaan nahay easy na waaye wallahi waxa waaye anigu horta 8 sano aan karinaya geedkan wax oo yacni oo igu cusub ma ahan markuu shay igu cusub yahay waa idinla share garee waa idin dhahay shaygan waa igu cusub yahay laakiin aniga ma igu cusbo mar walba waa sameystaa markaan guriga joogo waa iska karsadaa ciidi waa karsadaa markuu marti isoo socdo waa sameystaa marka idinkan waxaa idin dhihi lahaa iska tijaabiye walaalaheyga insha Allah waa jeclaan doontaa hadduu ilaahay nacam dhaho and please don't forget to subscribe and share and like and waxaan kala idin dhahayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh